xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland ayaa booqday goobihii saaka lagu dagaalamay oo xilligan si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada difaaca dowladda Puntland ee shacabka magaalada Galkacyo. wasiirada ayaa soo indheeyay wadada iyo waliba goobaha kale ciidamada difaaca uga jiraan Puntland waxaana xaqiijiyeen in xilligan Puntland si buuxda gacanta ugu hayso dhammaan xarumihii saaka lagu dagaalamay. Axmed Muuse Nuuryare kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa arrinkaasi ka hadlay. aad baan uga xumahay inaan ku faano dagaal Galkacyo sida qolada koonfurta oo kale dadku way isugu kaymid laakiin waxaan idin sheegayaa saaka qoladii isu moodmoodo hadda meel inta shacabka ka soo gasho orange meel heblaan haysanaa inaanu iska difaacanay aad baan ugu mahadcelinayaa ciidamada iyo shacabka reer Mudug iyo reer Puntland difaaca xoog galo ay saaka u sameeyeen dadkooda iyo hantidooda qoladii isu moodmoodo hadda meel ka soo gali jirtay oo orange jirtay annaga haysana meel inta idacalaha Muqdisho la hadasha waxaan idin cadeynaynaa inaanu ka sifaynay meelaha ay soo weerareen oo dhan difaacuna noo adag yahay hadda wasiiradu soo kormeereen ciidankayaga tabeelayaasha koro uu joogo magaalada si buuxda inaan gacanta ugu hayno waa difaacayna shacabka waana la gardaraystay waana soo weerareen todobadii bari oo aanu bariyeyn todobadaba xabad bay wadeen maalin ay wax dhaawicin ama ay wax dilin lama arko Ali Yusuf Jaamac wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa isaguna halkaasi ka hadlay aniga oo taagan meesha la yiraahdo hotel kulmiya ama city center sida loo yaqaano bay odayaashu waxay oo ciidan madani u badan halka ay joogaan bay waxay codsadeen odayaashiyadu inay odayaasha dhinaca kale ee saacad ay soo gudbiyaan oo ay xabada laga daayo aan la xabadaynin ilaa waxa soo gudbiya maba ahan baadii la ku roon yahay ma aha odayaashii nabadee waa nimankii dagaalyahanka oo inay dagaalamaan raba halka markaan taaganay xabadu lagu bilaabatay hadda saacadan waxay taagan tahay meeshii awal la isku haystay ilaa station-koodii ilaa iyo hadii la ku roonyo wadadii ay joojiyeen ilaa iyo controlkii ilaa dugsiga ummadda ilaa iyo city center ilaa darxume ilaa inta inay saacadan ka banaan yihiin wixii dhimasho iyo dhaawac iyo damage halka ka dhacayna nimanka odayaasha suuqa ay sheegay ee naga codsaday inaan wadada u furro baa iska lahaa hadii meesha wax qasaara maanta ka dhaceen oo gubasho ka dhacday oo dhimasho ka dhacday oo dhaawac ka dhacay walaalaha iyo saacad baa iska halka afkan ku sii cadeynaya walaalaha saacad baa iska leh anagu diilaa ku rooyahay nimankan kale ay shaarka u galiyeen waxba ka fahmayno walaalaha yawaan isdaqaanay hadii dagaal yimaadana waa wada hadli jirnay wada hadalkii iyaga laftigooda balaada kala ka dambayso oo si riixaysa laakiin warku waxba ku soo gabagabeynaya walaalaha iyo haday hadda nabad rabaan oo walaalnimo rabaan oo talnimo rabaan waa wada noolaan jirnay waa wada noolaayna walaalaha ahaan ehla baahayna laakiin xabada xal ma aha dhibaatada hadaayeen intaas aan lagu filan annaguna hadii ay odayaasheeda waa ka dambeeyna waan aqbalayna warkoodana waa yeelina raalli baan kana hadii hadir saacadan yiraahdaan wada hal baan furaynaa iyo dib heshiisiin waa soo dhaweynaa annagu dadku wada halka diidan maayn dadku walaalnimada rabaanahay dadka hawsha soo dhaweynayaanahay dhammaan xarumaha lagu dagaalamay xilligan waxay si buuxda ugu jiraan gacanta Puntland waxaana dowladda Puntland ay xustay in mar walba ay diyaar u tahay wada noolaansho ee darasnimo Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Galkacyo.